ورئيس الوزراء أبدا وعمر قديرة حاجة قبته ولي يجيب هالكاتشوج محو رئيس الوزراء هدويه محو يعني محو قبتي محاد كو أركتي ده وكا مامور كده سايبين هردوبيني نونا قوانين ارجع لي أنا خيالي ياس وكا هايلة إيمان حسن وحور رباني إسكالية رالو ما جمعها يوركاجن يعني ما أنا واحد كوه الله أنا أقانا أنا كوه الله هاي كذي روبلو ليتا حسن على خيره كسي ليتا كسي شريعسن محنكو يا شريف كأو سجونا كسي ليتا ده محنكو يا هلاي مربتا إن أدبرتو قرآن كريم كأديو جو بريجا أما قبت شقة كصوبير مركز كالفرقان أونلاين لعبها مركز كوحاكمته لعبت حفظينتا قرآنك لعبت فربركة iyo tasxiixa quraanka sidoo kale culumta diiniga oo lagu sharxay luqadda Ingiriiska sida aqoonta fiqhiga siirada iyo ahadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam markasku wuxuu u furan yahay dadka waaweyn iyo caruurta labadaba markas al-furqan online baro diintaada meel kasta oo aad joogto iska diiwaan gali hadda oo bilow barashada quraanka iyo culumta islaamka maanta nagala soo xiriir WhatsApp-ka hadda boosasku way xadidan yihiin waxaan rabaa shaqada ay qabtaan Sabakal Hospital Nancy timay gaarad lugad ma haya ajeedan ma lugada hairline ma sha Allah horay baa la keenay shaqadan waa shaqada ay qabatay saaxiibayaal Sabakal Hospital xaruntooda waxay ku taalaa magaalada Nairobi ee xaafadda Parklands ismaha la yiraahdo Diamond Plaza 2 dabaqa 11 floor dabaqa 12 ma sha Allah waxaad helaysaa result aad iyo aad u wanaagsan oo ay tusi taabsiya يعني قال لفتي وحنا هاي بمقرنسة I'm the living example. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن كسو دواده barnaamijkeena dhabkaada qodob kan waxaynu ku dul istaagi doonaa sida aad la socoteen bashalay ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliya ay soo saartay warqad ay kaga jawaabayso baaqi ka yimid Kismaayo ay soo saareen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kadib shirkooda Kismaayo ka dhacay haddaba waxa laga warsugayay jawaabta warqadaasi ay ka bixin doonaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo dabcan ka kooban dawlad goboleedyada Jubbaland Puntland iyo waliba madasha samata bixinta Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin kale oo doora maanta magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxa ka dhacay qado uu sameeyay madaxweynaha Jubbaland bal qadadaas aan eegi doonaa iyo si guud jawaabta ku maqan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxay noqon doontaa saaxiibka jaamac galad bay la jooga jaamac soo dhawow intayna bal maanta iyo waxa Nairobi ka dhacay u imaaneen qolada la yiraaho golaha mustaqbalka banoonigu hadda ma iyagu la jiraa mise dawladda Soomaaliya wali wax la jiraa banoonigu loo dhinac waa jiraa bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya gudahaan ba ummadda Soomaaliyeed meel kaste oo ay joogaan waxa leeyahay salaamu alaykum amaad joogtaanba horta banoonigu labada dhinac waa jiraa banoon labada dhinac jiraa ma jiraa labada dhinac hadda waa loo laadaa maya tii villa Soomaaliya jirtay xageeda wali waa jirtaa oo maxaan ku meeshii la rabay inay warku ka soo baxo kama soo bixin banoonigu waa la jiraa hore ha villa Soomaaliya ayaa maxaan ku yiraahdaa ayto bishii December yani 20keedii shirkii la soo gabagabay villa Soomaaliya fariinta loo diro dambaalka loo diro balooniga lala dhigay de villa Soomaaliya shalay warqadii soo baxday kamayna soo bixin waxay ka soo baxday Xamse Cabdi Barri iyo maxaan ku yiraahdaa ayto golaha wasiirada waxba la joogin golaha wasiirada iyo Xamse oo waxba la joogin iyo warqadu ka timid warqad marka waxa waaye yani warqadii horta wali warkii xagaa waa jiraa villa Soomaaliya ma kamid ma aha kamid ma aha hay'adaha dawladda waa kala shuqul villa Soomaaliya ma odaga uma u kaadi ma villa Soomaaliya waa Xasan iyo xaafadiisa weey joogta talada ka go'do oo maxaan ku yiraahdaa iyagu hawsha iskale marka qoladaas ayaa wali horta waxa la jiraan oo balooniga wali villa Soomaaliya aniga aragtidayda waa jiraa kuwa warka ka soo baxayna kulli qoladan de waa la dhihi karaa balooni ba ag yaal oo maxaan ku yiraahdaa iyadoo wax badan la fiirinayo dabcan waa iska soo gudbiyaan waa la dhihi karaa oo Xasan oo Xamse soo maraya ayaa yiri warqada inaga dir wala dhihi karaa oo kuwana marka waa laga sugi karaa jawaab marka muhiimadu waxa ay tahay yani sida hadda ay wax u socdaan marka aad dhan walba ka fiiriso aniga waxay ila muuqataa yani in la isku maraataynayo waayahay maraatada marka la ku soo noqon doona maanta magaalada Nairobi maxaa ka dhacay maanta magaalada Nairobi hotel ku yaala xaafadda Karan oo la yiraahdo maxaan ku yahay Intimsidai Wellness ayaa waxa ku kulmay inta badan madashii mustaqbalka Soomaaliyeed wixii la dhihi jiray
ilaa 4 musharax madaxweyne ra'iisul wasaare maxaan ku idhaahdaa to madaxweynaha imaan doona uu wato sida meesha laga sheegay oo maxaan ku idhaahdaa kulli yani maxaan ku idhaahdaa inuu soo dirsaday mid kamid ah musharaxiinta ya ra'iisul wasaarihiisa soo dirsaday yiraahdeen يعني مشرح مقنع يا رئيس الوزراء مركو مدحوينه نقد او خلka u magacaabi laha soo diray bay yiraahdeen waa shaqada waa ka dhacay ha iyo Axmed Madoobe iyo 26 xildhibaan oo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ka kooban ayaa hotelkaas Intimsidai Wellness la yiraahdo ku kulmay adigu qadana meesha dabcan waa kula haaya afarta musharax marka madasha joogay magacyadooda hadii aan sheegno maadaama ay yihiin musharaxiin miisaan leh waa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre Maxamed Xuseen Rooble saddexdii ra'iisul wasaare hore iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo deesna musharax ah waa afartoodaas musharaxayga weey adi musharax iyo maxaan ku idhaahdaa adigu mas'uuliyiinta kale iyo يعني maxaan ku idhaahdaa ra'iisul wasaarihiisa soo dirsaday waa Shariif Sheekh Ahmed Shariif Sheekh Ahmed oo meesha ka maqnaana wuxuu soo dirsaday nin la yiraahdo Cabdirashiid Maxamed Xidig mas'uul ra'iisul wasaare ka dhigan doona haduu madaxweynaha waxa la yiri meeshii waa ra'iisul wasaarihi soo magacaabi lahaa Shariifku marka uu madaxweyne noqdo marka adigu xubnahaas ayaa meesha ku kulmay oo maxaan ku idhaahdaa warqadii ka soo baxday xamar bila Soomaaliya dhimayna xamar ka timid yaa maxaan ku idhaahdaa adigu laga hadlayay oo arrimaheeda laga doodayay wakaasa okay inta aan xog ognahay kastoo ayna saxaafadu aad u joogin inta aan xog ognahay maxaa laga sheegay shirka marka horta waxa suuragal ah Puntland meesha way ka maqan tahay laakiin Puntland waxay ku gowracan tahay kullay kuwan oo oday xagga ay imaaraad telefoon waa jira kullay telefoonada kullay waa jiraan oday bdani xaggaas uu maartay qaracankii ula aaday wali inuu suursan yahay iyo inuu soo kacay lama oga laakiin kullay uu iska soo kici doonaa marka waxa laga hadlahayo waa jawaabtii laga bixin lahaa warkaasi xamar ka yimid warmurtiyeed inay soo saaraan waa suuragal inta aan barnaamijka ku jirno fiidnimadan hadda kullay way dhamaysteen barnaamijkoodii laakiin in maxaan ku idhaahdaa qoraal ay soo tuuraan waa wax macquul ah oo dad loo diro laakiin hadda wali wax qoraal ah soo baxay ma jiro marka dabcan waxbay isla meel dhigeen iyaga oo ka shidaal qaadanaya habdhaqanka villa Soomaaliya iyo sida ay wax u magacawday iyo dariiqa ay martay iyaga oo ka shidaal qaadanaya ayaa iyaguna maxaan ku idhaahdaa intii ay iyagu sameeyeen in la eg dabcan inay sameeyaan yaa u qorshaysan marka waan fiirinaynaa bal kolba sida ay wax maxay rabaan inay sameeyaan iyagu dabcan in markii xamar hadda laga hadlahay waxa la sheegay in la yiraahdo Xasan Macalin Maxamuud Sheekh Cali Nuur shalay sidii ku qoreed meesha sida inay ahayd baan u maleynaa Xasan Macalin Maxamuud la yaqaan Xasan Macalin Maxamuud Sheekh Cali Nuur waa abtiriyeen caadi waa abtiriyeen ayaa waxa la yiri yani gudiga farsamada يعني حسن محمود هدي لو كو موقتاي كيكلا حسن مدحويني حسن محمود والله marka yani kaasa waxay yiraahdeen hogaaminaya wasiirka cadaaladda Soomaaliya oo wasiirka cadaaladda haye cadaalad ba meesha ku dhintay marka ama wax xuquuq aan ugu leeyahay ha meesha yani waa la iska wada socdaa ninkaasi balada waladana wax xuquuq ma leeyahay buu dhihi doonaa ay oo kaasa hadaad nooshiin maxaa kale oo naga rabtaan ay ila doonata ما من النوراتان با مهم الشعب كمقدشة وحبرشان نقوم ليهدين عافمات نقوم ليهدين محن كل هذا أمن نقوم ليهدين وحي عن قبلنا وصدقوا الدولة بس صدقة بحسن نرش هذه الدولة صدقة بحنا سمير مركا وارك ريكورد كاسويا ريكورد كاسويا اللي أقول أن الله صادر أي يقولون مركا حق هيها قولها مستقبل محمد عرب ninkii gudiga hogaaminay xogayaha waxa weeye golaha mustaqbalka kiiba anagana gudiyay u direen iyaguna sida aan xogta ku helayno ama qorshaysanba yani magacaabis rasmi ma aha oo de kulli markay warmurtiyeedkooda soo saaraan xasan maxamed soo diray iyaguna inaguna maxamed arab iyaguna direen yani u qoondeeyeen laakiin de wuxuu ku soo bixi doonaa kulli wareegta bayaan ku soo bixi doonaa marka
muhiimadu waxa weeye maadaama ninka ay magacaabeen intii kalena ay qariyeen annagana kana noo magacaaban haddii ka 6 ay ku soo daraan annagana 6 kale aan ku daraynaa hadday 2 ku soo daraan 2 ku daraynaa ha koofi iyo mid kale عادي ولا سلام يا ريسان كوفي اللي هذا غير والله واللواح يا صاحب نفدي وقال كوفي وين بوتا نين كتب بدنا مره ها كوفي وين بوتا ما hadlahayo waa ninka maxaan ku rahaa soo dhowrahaya wuxuu maagan yahay cid ugu ma jirto marka waxa uu waa nin maxaan ku rahaa aad u culus weey marka koofi mid kale loo diray hadii maxaan ku rahaa loo diray meesha ku kala tagayaan aw muhiimadu rag wax iska celin kara ha rag wax iska celin kara yaa kulli loo diraya laakiin marka horeba kaasaan dhihi lahaa anigu koofi aan dhihi lahaa loo dhiibo marka nin maxaan ku idhaahdaa ayto maxaan ku cadkiisa marka adu muhiimadu waxa weeye maanta arintaas la isla soo qaaday waxaana la yiri haday nin inoo soo diray nin kale aan u dir ha iyagu talaabada haday 10 ka dhigaan inana 10 haday 5 ka dhigaan inagana 5 hadda waxay magacaabeen soo ma aha wasiirka cadaaladda iyo magacaabeen laakiin waxay yiraahdeen guddi wasiirka oo hogaaminayay ninkaas marka guddi uu hogaaminayo Maxamed Carab yaa iyagana meesha laga diraya hawluhu way socdaan waxa weeye loolan adag baa la sugayaa ragga ma isfahansan yihiin labada dhinac ha way isfahansan yihiin ma aha caadi baa la soo socdaa xasan sheekhna waxyaalo badan baa ka fashilmay wax badan baa maxaan ku yiraahdaa xasan muxuu banoontan isaga riixay isagoo xamso ugu riixay xukuumadda xasan sheekh waxa weeye isaga waxba u muuqda muddo kororsi baa u muuqda muhiimadiisu waa in la isla meeraysto marka maliw nimanka waa ka adkaan kartaa ku jirta ma adkaanshahan fiiriq markuu qofku sharci ku taagan yahay ee uu maxaan ku idhaahdaa tu nidaam la fahmi kari iyo hanaan yaani dawladnimo uu ku shaqeynayo ayuu qofku maxaan ku idhaahdaa to ogaan karaa in laga guuleysanayo inuu guuleysanayo ninkani nidaam kuma socdo sharci kuma socdo waa qarda jeex buu ku socdaa aniga waxaan rabaa 2 sano oo maxaan ku idhaahdaa muddo kororsiga in la igu daro sababtoo ah in ceelasha shidaalka lacagtii iyo wixii weli xaqul qalinkii kama qaadanin shirkadihii waxba meesha jira lacagtaasna ana soo dhiriyay waa in maxaan ku idhaahdaa marka la igu simo meeqa waxa la soo dhiriyay afkood waa in la igu simo taagan yahay waxa uu qabtay bad wax dawladii hore ay soo dhiriyeen buu soo ma wax qabadka kaliya hadda dawladda xasan sheekh ku faani karto waa in Soomaaliya waxna qabatay inta uu laga qaaday waa in maxaan ku idhaahdaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku beertay maxaan ku idhaahdaa waa in deyntii la cafi waxa soo dhan dawladdiisa ka horeysay ee farmaajo يا maxaan ku yaa ka soo shaqeysay oo iyagoo gabagaba ah yaa la kulmiyay tanu marka isagu bilaabay tanu wuxuu rabaa hadana inuu meesha ku dhamaanaysa inuu ogaado bilaha Ameerika wixii bay inay dawlad tahay oo qori isu dhiib ay tahay yaani ma isaga nacfiga u daran ma oran karaa labada sano waxa uu diiday uu ka dhaartay waxa iska daafiiri anigu Faarax macallin baa noo sheegay uu ka dhaartay warka Faarax macallin miyaan qaadanayna markaan maxaa qaadanayna waxa noo muuqda yaan arkaynaa dadkan subax walba lagaga dhawaajinayo fiiri xasan sheekh haduu aaminsan yahay waxa in la wada leeyahay Roble noo sheegay Soomaa Roble saaxiibkiisii ninkii isaga xilka u dhiibay ya Soomaaliya oo dhan la wadaagay fagaare mar iyo 2 iyo 3 kula wadaagay wuxuu yiri markii habeenkii la doortaan subaxii ku kalahay wala talinayay buu taliyo waxba siinay wuxuu niyo warkan aad sheegaysiyo waxaan aad qubayso wax macna leh aniga agteeda kama habuul farmaajo isaga u shii iska dhiibay qoriga iska dhiibay aniga laakiin ma dhiibay maxay gala talinaysaa marka farmaajo markaan ku buuqnay tab baashi iska dhigay fataq siiyay buu ma cidlaan ka qaatay buu aniga حني هاي مقاطع ما نديبي هبك كيابين إنده وان أرجنا مركب وان تبتأ وشيء نيك اللي يهذو روبل يا حسن شيخ كم مقاطع صابتو قفك إذا قفك الله هيستو قفك شرعي وكنت قفك دلك بربورية قفك الدولة النمو الصومالية كو عياري قفك كدقي فيلا الصومالية يمدحتو يدي أمد الصوماليات مال محاكو هذا عيالك حافظوا أي كبر دو الدمان وهو يمو محاكو اعتماها يسكوت شيدان قفك كدقي ومدحوين حسن شيخ محمود سيلا درادت meel uma uu socdo hadii maanta la gurgurtami laha yaani de waxbay ahaan lahay war maanta oo shirkan uu Nairobi ka dhacay oo 4 musharax iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo 26 xildhibaan ay isugu yimideen soo 20 kii la qabtay ma January ha Xasan ma wuxuu rabaa markii inuu ku garbaxo warqad 19 soo baxday xukuumadda ha ma ku garbaxaya marka
waxay ku xidhan tahay ragga ay hayaan fiiri xasan in dhar run waxaan ahayn oo maxaan ku idhaahdaa uu aqbalaya ma jiraan dad jilicsan oo wada mawaad ah oo dad jilicsan oo wada mawaad oo maxaa sarwaaladu ay ka wada dhacayaan oo maxaan ku idhaahdaa mid يعني يا اسكده له كرا يعني بركات في رصد ضدك المعارضة ونوع معجزة أول أيجي بابا ضيع عنبا ضد يجي بضيع عنبا هذا أوكي والله ياش كسر سما قال بريكا مايا وهذا رجع لي في ماشي يا دليل إسا لما أنتو جارهان مشرحين تمدش مقدشو سما تبحين تميل هذا كو أساكا دليش dadku wada midnoolayaal oo iska socdo sharafkii uu jiray Cabdiraxmaan Shukuro qaylada ka badan wuxuu la joogaa warda qayla fiiri qayla kaliya qayla gar dhaweysti baa la yiraahdaa qaylada marka isagu marinayo u dagay hubka u qaateen u qaataan maxaa dhacay sabab hadii dariiqa laga leexdo fiiri dalkani muxuu dadkani Soomaaliyeed ay hubka soo qaataan laga gudbaa la rabaa maya duruuf baa keenaysa hubka annagu ma keenayno warjama maya ninkii wax yar isugu aadaan haduu dhaho anigu saan rabaan ku soconaya ninku aada waa in la helo marka ninku aada la leeyahay ninku aada oo isaguna qoryaha soo gurta oo maxaan ku ahay sayidku soo istaaga oo dhuunta ka gala xasan indha run uu rabaa xasan indha run uu rabaa dad wada jilicsan oo maxaan ku idhaahdaa rooblo oo maxaan ku idhaahdaa aad ka yaabaysi xasan cali khayro isagiina ma gacmaha iyo warkaagan iyo anigu ma aqbalahay anigu waxaan ku hadlayaa anaa aqaana anaa ku hadlaya ha ikaadi rooblo oo liita xasan cali khayro ka sii liita ka sii jilicsan maxaan ku idhaahdaa shariifka oo isaguna ka sii liita dad maxaan ku idhaahdaa meesha fiiri walaal gacali aroos lagama qayb galayo fiiri meesha aroos lagama qayb galayo xil baa la raadinayaa kuraas baa la raadinayaa nin labadiisa indhood banaanka u soo bixiya xiliyihiisa banaanka shacabkooda inay dab geliyaan ma rabaan dee wardaaru dab hal la geliyaba ma dhihinba anigu dab hal la geliyo marinaha loo dagaalamo soo ka dhacayaan maxay qabanayaan ma sayidka deegaan oo qoryaha qaataan oo fiiri ha تسمع قول موتا taas waa dab la geliyo dab in la geliyo fiiri markii dabka la isgeliyo ee ay timaado in dabka la isgeliyo marka waa la isfahmaya xamse muxuu la joogaa maanta waa ka xamse yiri warqada soo xamse xasan buu la joogaa xasan buu la joogaa dawladiisii ورئيسul wasaarihi abad ugu cimriga dheeraa weligiiba halka joogi muxuu ra'iisul wasaare haduu yahay muxuu yaani muxuu qabtay maxaad ku aragtay waka maamulka dhisaabeen hore doobinay muxuu qabanay arga cali khiyaaligaas waka hayla imaan xasan wuxuu rabaa in iska celiya muhiimadu inta uu warjaba ninkii ku farxaya iyo ninkii ka naxaya iyo ninkii suu doono u qaadanaya isaga u taala xasan talada dhulka in laga dhigo rabaa talada in dhar run ah waxaan ahayn lagagama dhigayo xasan wuu ismahadiyay Soomaa garan 10 kun oo wiil ayuu isku aadisaday wuxuu isla cid ka awood iyo itaalroon ma jirto xogaa lacagana waa haysan xasan wixii farmaajo ka bartay ugu dhamaya kaadii magaaladii iyo caasimadii waa helinaysa farmaajo soo lagama dhigin caasimadii baa u helinaysa war see ugu helinaysa farmaajo see ugu helinaysa caasimadda saaraysa waxaan ka rabnaa caasimad waa inay saarto inta qoriyo la hor istaagto adar gacal xamsahan waxaan ku idhaahdaa aan magaciisaba garanayn warqada uu soo qoray anaga nama anfacdo warqadaasi ra'iisul wasaaraha dalku yaa ka muuqato fiiri adar gacal shaqooyinka hay'adaha dawladdu way kala duwan yihiin way ka saareen soo garan ma aniga waxba igama gelin waxaan ka hadlayaa anu shaqada dawladeed iyo siyaasad baan ka hadlayaa soo garan muhiimadda iyo waxa aan doonayaa waxay tahay xasan waxa weeye waxba ma xeerinayo kursigu waa u mucaaday lacagtii turkiguna waa soo socotaa ceelasha shidaalkana waa la qodayaa maxaan ku idhaahdaa meel la yiraahdo meel heblana waxba laga duulinayaa dayax gacmeed iyo sanadihii wacna waa soo socdaan buu kule inuu sii joogo rabaa sanadihii wacna waa soo socdaan maxasama waa hal ku dhagiisa maalmihii wacna waa soo socdaan sanadihii wacna waa soo socdaan hadda maalmo oran jira masanadu bedel sanadahaaga wacan ma rabno warwaan rabnaa Soomaaliya baxaysa no adar gacali hayskato intii uu joogi kare wuxuu qaadan karay waa qaatay adeerka dambe wuxuu qaadanay kana hadda qaataa ma joogo kan mid oo man taasaaba fiican warba ku sheegi adar gacali hadii
toban oo man oo kadib imaata xasan dabadii imaata ayaa dhaanta xasan sheekh Museveni ma ku jooga hadda xasan sheekh maxamuud waxba kama soo haraya wax ka soo haraya hadda ka hor muxuu yiri fiqi أيح ويان بور حسن شيخ وأيح بور بعض أيح اللي هذا صراع الجلوة ما صراع الجلوة وسنة وحكلوا يليه إيه بحالك أيح اللي هذا أفكنا وحبوك عن الضبطن وكسي دقاء أي سؤال قرأ بيرت طبعا حبوا أيح حد يكون دكتور مركب وحاله فينا إياه sababtoo xaqna way ka wadaan xaqna way ka sii wadaan marka xasan uu jeeday rag kale uu jeeday xasan buu jeeday xasan sheekh maxamuud buu jeeday kuwa la socdo uu jeeday ma isagu u jeeday soo garan maanta isaga ayixi haa wasiirka gaashaandhiga wey maantana waxa weeye safiirka jooga Djibouti soo ma ahan Salaad Ali Jeel farmaajo geeyay ya farmaajo waga haa meesha ma xasan isaga hayaa islaantii ku xigtay Nicholas Kay Nicholas Kay وكيلك قرمده ها islaantii ku xigtay malaxayga show adu dadka kale ahay yaan u tagnay anoo dacwo waxaan nirib nimankan ha waxa weeye meeshan nidaamkii dawladnimadii shalay wixii dhan waa lagu tuntay nimankan waxa weeye musuqmaasuqoodii xarkuhu goosaysan intay waxay tiri maxaa tiraahdeen musuqmaasuqi waa kan maxay tiri musuqmaasuq ma aha kuwan tuuga waa هي لوت سيد ها sababta musuqmaasuqa markii qofka wax musuqmaasuqaya markuu lacagta soo qaato bad meeshu kaga soo tagaa kama soo qaad boqolkiiba 90 buu soo qaatay hay boqolkiiba in buu qaatay 10 buu kaga soo tagayaa inta markuu isagu lacagta soo qaado inta aragta ama ka ag muuqata iyo wax kala siisiya iyo maxaa ku yiraahdaa ku sii jeediyaa wax kan 10 isaga dhiib ka shan dhiib ka laba dhiib wala kala tagaa meeshiina waxba ku haray dad badanna waxba gaaray markuwan way waxalayaan kuwan waxay tiri ma aha musuqmaasuqiisayaal waa Lutheris tuugween shayba kama tagayaan nin guri u soo dhacay way isoo marka waqtiga iga dhacay nin guri u soo dhacay oo kala weeyaan Salaad Ali Jeel way ma aha waxaan anigu leeyahay waa halka ha uu yiri ayahana ninkii ku yiri wuxuu ahaa fiqigan way ku cad yihiin wixii oo dhan baa ku cad walaal muhiimadda marka waxay tahay ku baahan oo daama isaga yaa imaan hadda qoladan may la qaadleynayaan marka waxa la rabaa xasan sheekh rag joojiya la rabaa xasan sheekh kuma joogsan waxaan ku yiraahdaa Nairobi ba hotel ba wellness ba lagu shiray oo maxaa ku yiraahdaa warqad ba hebel laga soo daba tuuraya war xasan waxa ma qorayo muhiimadda marka waxay tahay xasan in run ah in lagu wajaho aad baa uma santaa jaamac dab in maxaan ku ilaahay uu qaato mucaaradada si dab ah in uu qaato dadkan aad muddo in caloosha laga hayo dhamaantoodba iboga wada haysta wadayaasha wada u baxsanaysaa demaya fiiri arga caleexta hadaad maaragtay markaad soo istaagto aad si cod nool aad ku hadasho hatta waa macne dad aad muddo caloosha in laga wada hayo ya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka cod nool عبد عدنا ولا احتري ده اسقى هو دايان عبد الرحمن واقف لي حسن شيخ يا عبد الرحمن واقف لان لها لكن ولا سقرب يا عيا سوما